waa hagaag asxaabta waxaan halkan maanta ku eegeynaa ilaa iyo 6 su'aal oo ay daawadayaashana soo weydiiyeen su'aalaha qaar waa ay soo laalaabteen oo maaragtay markaasi waxay u baahan yihiin in lala falgalo sidaas awgeed ayaan markaa usoo xushay mid ka mid ah hal ka mid ah ayaan soo xushay waayo intaasoo ruux oo hal su'aal wata weeyaan su-aasha isku mid ah soo dhammaantiina marka su-aashaasi way idin anfacaysaa sidoo kalena inta su-aalood halkaa ku jira waa su-aalo idin wada anfacaya marka sidaa ula socda dhammaantiinana waad ka wada faa'iidi kartiin intaanan su-aalaha u gedigelin haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ku leenahay waan ku jecelnahay nala joog oo subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto dadka markaasi ugu horeeya ee daawada youtube channelkani aan halkan mar walba muuqaalada aan soo dhigno magacayga waa shaaciye mar kale soo dhawaada ayaan idin leeyahay waxaan halkan ku bilaabaynaa su-aasha u horeysa oo ayna soo weydiisay rooda maxamed su-aashani waxa ay leedahay halkee laga xareysan karaa marka ay leedahay waxay ula jeeday muuqaalkii u dambeeyey ee hadda aan soo geliyey ee arrimaha Canada aan kaga hadlayay muuqaaladii u dambeeyey ayay ka hadlaysaa marka waxay leedahay barnaamijyadan halkeen ka xareysan karaa okay Rooda Maxamed haddii walaal aad ku sugan tahay Canada sida ugu fudud oo aad barnaamijkan ku heli kartid waxay tahay barnaamijyadan waa ay sameeyaan kuwa maaragtay jaamaca maxaa lahaa community-ga ayaa sameeya kuwa association-ka sameeya waxaa kaloo sameeya qoliyaha arrimaha diinta ka shaqeeya markaan dhahayo arrimaha diinta qoliyaha ka shaqeeya muslimiinta le diinta kama shaqeeyaan ilaan gaaladana diintooday ka shaqeeyaan muslimiintana diinteynii suubaneed sallallahu alayhi wasallam aan kasoo gaarnay ayay ka shaqeeyaan so qoliyahaasina ma aragtay waa ay ka shaqeeyaan oo waa raadin kartaa dhanka kalena more information haddaad u baahan tahay waxaan kugula talin lahaa in aad markaasi tagto lawyer ka kuugu dhow ama lawyer aad raadsato kadibna informationada maaragtay aad jiraado warniyo waxaa la ii sheegay in programkan uu jiro inuu programkan uu jiro which one easy ah keeba easy ah oo aan ehelkaygu ku keeni karaa inaad dhahdo isku day insha Allah su-aasha labaad waxaa na soo weydiiyey almar channel number 2 waxa uu leeyahay yaa xareysan kara barnaamijkan hadda aan ka hadlaynay oo roodana soo weydiisay ayuu leeyahay marka rooda waxay dhahday halkeen ka xareysanayaa almarna waxa uu leeyahay ama waxayba leedahay baadhanow rag iyo dumar wuxuu yahay laakiin almar channelkani waxa uu leeyahay yaa xareysan kara waxaa xareysan karaa qofka qaxooti inuu ahaado waaye yaa u xareyn kara waa haddana marka su-aal kala imaanayso su-aasha imaanaysa waxay tahay waxaa kuu xareyn kara oo keliya dadkaas halkaa jooga oo ehladaadii ah waayo adiga haddaadan joogin Canada ma xareysan kartid oo hawshii ma wadi kartid oo Kenya ma joogtid programyadan oo dhan waxaa dadka u xareyn kara dad Canada jooga oo marka Canada ku sugan ayaa xareyn kara aday ku xareyn karaan oo Canada ka maqan laakiin waa inaad qaxooti aad ahaato oo kaarka qaxootiga aad haysato oo UNHCR ay ku aqoonsan tahay inaad qaxooti tahay kaarka UNHCR ee qaxootigana aad haysato lagu siiyay su-aasha saddexaad xasan nuur mooge ayaa na soo weydiiyey xasan nuur mooge wuxuu dhahay qaxootiga Turkiga ma ku jira dadka la qaadayo marka isagana su-aashan waxay la xiriirtaa oo soo weydiiyey arinta Canada ayay maaragtay la xiriirtaa oo 45,000 ee Canada ay qaadayso okay marka wuxuu leeyahay Turkiga qaxootiga ku jira ma ku jiraan dadka la qaadayo horta midaan ku idin sheegaya dhammaantiinaba inaad fahantaan ayaad u baahan tihiin marka lagu dhaho qaxootiga la qaadaya marka lagu dhaho horta qaxootiga marka la qaadayo dowladda marka ay ku leedahay qaxooti baan qaadaya kuma dhahayso waxaan ka qaadayaa Kenya ka qaadayaa 100 ruux Ethiopia waxaan ka qaadayaa 100 ruux halkaas 500 aan ka qaadayaa meel hebel 30 aan ka qaadayaa ma dhahayaan ayaga waxay dhahayaan 45,000 oo qaxooti ayaan qaadanayna ayay dhahayaan so meelaha ay ka kala qaadayaan marka ayaga go'aansado waxay leeyihiin
qolyo ayaga u shaqeeya oo dowladda ka mid ah oo u diyaariya meelaha maaragtay dadka laga qaadi lahaa iyo dad oo already ba UNHCR ay referral ay usoo samaysay marka waxa aan rabnaa inaan fahano yaa waay dadka la qaadaya waa dad maaragtay waxaa referral soo samaysa UNHCR referral soo samaysa waxaa loo soo diraa qolyahan Canada ee u jooga halkaasi iyo informationada sameeya kadibna kuwaasa interview kula yeelanaya halkaasay sheekadu ay ka bilaabataa so Turkiga ma ku jiraan way ku jiri karaan mana ku jiri karaan waxay ku xiran tahay UNHCR ta idin haysa wax ma ka raadisay Turkiga oo ma tiri qaxooti baan haynaayo waxaa la rabaa UNHCR ta meesha joogta in ay ayaga maaragtay suuqgeyn ay sameeyaan marketing inay sameeyaan sidaas ayay hawsha ay ku soconaysaa Salman isagana sidoo kale waxa uu yiri Yemen ma ku jirtaa sidoo kale hadalkii iyo jawaabtii aan hadda u sameeyay Xasan Nuur Mooge oo kala waaye iyagana suuqgeyn weeyaan UNHCR Yemen dad baa ka imaada oo mar walba waa la keenaa marka laga reebo waqtiyadii u dhaweyd oo hadda wadanka maaragtay iska yara xanibnaa laakiin dadka waa laga keenaa Yemen oo maaragtay way imaadaan hase yeeshee haddana UNHCR ta waaye so dadka la qaadayo oo lagu leeyahay dad baa la qaadaya weeyaan dadkaasi waa dad qaxooti ah kaarka qaxootiga haysta waa dad markaasi diiwaan galsan waa dad UNHCR ta ay mar wareysatay xisaabta ku daraya mar haddaad qaxootiga joogto oo UNHCR na ay ku wareysatay oo wareysi resettlement ay kugu samaysay markaasi dan waxaa leedahay rajo ayaa leedahay laakiin weliga ma lagu wareysanin 45 kunaan soo galaya wax yar ilaahay amarkiisa mooyaane wax yar suurtagal maaha waayo listiga kuma jirtid dadka la gudbiyay kuma jirtid oo la qaadayo so waxaa markaa aan dadka ku dhiirigelina haday rabaan in la qaado UNHCR ta informationadoodii ha u gudbiyaan ha la xiriiraan waxa markaa ay dareemayaan dhibaato ah wixii markaa information ayaga hayaan qolyaha UNHCR ta siday ku heli lahaayeen falkaasi ha galaan insha Allah su-aasha kale ee shanaad waxaana soo weydiisay Luul Axmed waxa ay tiri Holland anoo jooga Holland ayaan joogaa ay tiri waxaan haystaa passport Holland passport ma aysan sheegin laakiin Holland ayaan joogaa ay tiri Canada ma ka shaqaysan karaa mar haddii dhalasho Hollandaise ah aad haysato oo Holland dhalashadeedii aad haysato oo passport ah haysato yaa Mareykanka inta imaato waa ka shaqaysan kartaa oo Mareykan waa ka shaqaysan kartaa laakiin yiraahdo Canada waa ka shaqaysan kartaa Canada markaad ka shaqaynayso marka faa'iidada kugu jirto inaad Canada ka shaqayso maxay tahay shaqada aad Canada ka qabanaysana maxay tahay haddaba Luul Axmedey haddii adiga high skilled person aad tahay oo dhanka caafimaadka wax ka taqaano ama dhanka touch skillska aad wax ka taqaano fursad badan ayaa kaaga banaan inaad Holland aad timaado aan yiraahdo Canada inaad timaado aad shaqaysato shaqo halka aad ka bilowdo cabaar markaad shaqaysidna si ayara permanent resident ayaa temporary resident ayaa raadsanaysaa haddana kadibna permanent resident ayaa raadsanaysaa qaybtaas u gali karta haddii laakiin aadan high skilled aan ahayn oo maaragtay heerkaasi aadan gaarsiineenna waxa weeyaan ina imaato Canada aad ka shaqaysato waa sameyn kartaa hase yeeshee faa'iido badan kuugu ma jirto waayo dowladda aad ka socoto Holland canshuur bay ka jaranaysaa qolyaha Canada aad u shaqaynaysid canshuuray ka jaranayaan degmada marka aad ka shaqaynaysid canshuuray ka jaranaysaa gobolka marka aad ka shaqaynaysid canshuuray ka jaranaysaa soo adi oo dhan canshuur sidii lagaaga jarayo lacag tusaale ahaan $1 hadaa bishii shaqayso waxa ku soo haraysa $500 $400 ku soo haraysa taana faa'iido kuma aha marka sida ula soco dhanka kale Xamdan Nuura assalaamu calaykum Ethiopia ayaan joogaa ninkaygii Mareykanka jooga ma ii soo dacwoon karaa yes ninkaagii mar walba uu ku dacwoon karaa mar haddii uu Mareykanka joogo waana fududahay inuu ku dacwoodo hase yeeshee waxa meesha iskaga jiri kara waxyaabo isbaara u dhigta waxaasi in dacwada ay fusho sababtoo ah dad baa maaragtay marka ay wadamadan imaanayaan
nimankoodii ama naagahoodii ma sheegaan oo maaragtay kiiska uguma jiro. saas awgeed ma dacwoon kara marka qofkii, waayo hadduu dacwad furo naag baan qabi jiray uu dhaho waxa weeyaan isagaa xataa la celinaya, wax kale iska dacay. So waxaa la rabaa marka in horta meesha su-aasha adiga kugu soo laabanaysa waxay tahay ninkaagii markii hore kiiska ma ugu jirtaa oo ma ku diiwaan geliyay. hadday tahay marka kadib yaa wuu ku dacwoon karaa, si easy unu kugu dacwoon karaa. looyarka ugu dhow magaalada uu joogo ha aado, informationkana ha u gudbiyo, hana apply gareeyo oo ha fiil gareeyo oo maaragtay ha codsado in saaxiibtiisa ama xaajiyadiisa ama xaaskiisa loo keeno insha allah. su-aalahaasi ayaan rabay inaan halkan uga jawaabo macdama ay ugu soo laalaabteen. wixii su-aal oo kale ah oo aan rabo inaan ka jawaabo insha allah, su-aalo badan ayaa meesha ku jiro, hase yeeshee waan la soo baxaya ayagana si gaar ah ayaan ma aragtay idinkala soo jawaabaya, waayo su-aalaha qaar waxay u baahan yihiin inaan ka fiirsado oo aan aad u soo baaro oo aan aad maaragtay dabagal ugu sameeyo. wax maaragtay aanan hubin aan iraahdee ma rabo inaan halkaan soo dhigo. so waxaan rabaa wax aniga aan hubo oo aan soo ogaaday, xogtoodii salkoodii aan soo ogaaday inaan halkaan idinkala wadaago. so waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkaygii. intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idin leeyahay subscribe, alarmiga furo. intaas iyo in kale ayaan idinka rajeynayaa insha allah. nabad iyo nabaddiino allah inagu wada nooleeyo, caafimaad iyo cimri dheer, cibaado suuban. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.